halkaas waxaa ku jirta waidaa sa'aluuhu haddii wax weydiistaan fa actaahum waa siinaya ilaahay. haddii todobo faa'iido aan idin sheegi doono, todobadaas haddaad ogaato cumrada weligaa kama baqanayso. inkastoo imaam shaafici iyo imaam axmed ay yidhaahdeen ugu yaraan noloshaada hal mar waa inaad soo cumraysataa, iyagoo xadiis ay ka qaadanayaan. waxayna ka qaateen xadiiskii oo caaisha rasuulka alai salaam ay weydiisay haweenka jihaadka, wax jihaad oo waajib ku ah ma jiraan. nebiga marka wuxuu yidhi alai salatu wasalaam maya, jihaad waajib kuma ahan, laakiin cumrada waa inay aadaan. xadiiskaasi ayaa waxaa laga soo qaatay cumrada in la aado hal mar. imaam shaafici, imaam axmed waxay leeyihiin waa waajib. waajibka wax qofka laga rabo waayo oo fariidana ma ahan. markii axkaamtan dib ugu noqono fariida iyo waajib balkiin fariida sida salaada oo kale waa kama tegi kartid, shakhsi ahaan ayaa laga rabaa. waajib waxa waaye wax laga rabo inaad samayso, laakiin haddaad samayn weysay cuquubo aadan mutaysanaynin. fuqahada tafaasiil ay arrintan ka bixinayaan, laakiin ma raba inaan sii dhex galo. waxaan rabaa in todoba fadli oo ay leedahay ama fadliga cumrada todobaan soo qaadanayaa. kow muraadkaaga waa la aqbalayaa. qisan waa idin sheegayaa. xadiis waxaa jiro nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uu dhahayo, xadiis cajiib badan waaye. xadiiska qeybaan ka soo qaadanaya. wuxuu leeyahay walxaaju walmuctamir, qofka xaajiga ah iyo qofka cumrada samaynayo oo markaasi xaramka joogo, wafdullah dacaahum, waa wafdi ilaahay u yeeray. faajaabuuhu ilaahay ajiibeen. markaad cumro u socoto ilaaha kuu yeeray, markaa xajka u socoto ilaaha kuu yeeray, dacwadii ilaahay uu kuugu yeeraad u tagtay, marka karaamo gooniyaad leeda, waa wafdi ilaahaad tahay. waa cajiib waa martabadaada ma sahlana. marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi halkaas waxaa ku jirta waidaa sa'aluuhu haddii wax weydiistaan fa actaahum waa siinaya ilaahay. marka qofkii cumro taga oo muraad leh, muraadkiisa meesha lagu soo aqbalaya. marka waxaa dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskaasi oo uu noo sheegayo qiso ku saabsan ayaa jirto. qisadaasi waxa waaye qiso cajiib badan waaye. nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu wax yiraahdo qofka mu'minka ah oo iimaanka leh, waxaa la rabaa waxa uu dhahayo nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu rumeeyo, yaqiin uu rumeeyo waxaas inay dhacayaan. nin waxaa jiray oo 10 sano aan ilmo dhalin oo tarjumaan ahaa. ingiriiska qisadan ka dhacday. marka dhakhaatiirta wuxuu u tumin jiray dhakhaatiirta ku takhasustay arrimaha caruurta. caruurtu waxa waaye qofka inuu ilmo ilmaha inuu ilmo dhali karo in kale, dhakhaatiir baarta ayaa jirto. marka wadamada carabta iyo kuwait iyo meelahaas lagaga imaan jiray. luqadda carabiga iyo luqadda ingilishka ku fiicnaa, markaasi waa tarjumi jiray. haddii oo qofka uu ku dhaho dhakhtarkaasi waa ku baaray muddo ilmo ma idan helin, laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego ilmo ma dhalaysaan labadiina, ama midkiina ilmo ma dhalayo. hadduu mid kale haddii lagu talaalayo waa gooni. dhakhaatiirtu waxay soo saarayaan, dhakhaatiirtaas gruubka ah, warbixin oo ah natiijada fuxuusta la sameeye ama baarista la sameeye. ninkan marka 10 sano kadib maalin ayaa wuxuu go'aansaday dhakhaatiirta in isaga xaaskii u tagaan oo ay soo baaraan. isaga xaaskiisa 10 sano kadib dhakhaatiirtii u tageen, waa la baaray, waxa natiijada soo baxday. natiijada loo akhriyay. natiijada waxa ku taala marka labadiina weligiina ma dhalaysaa. markaasaa wuxuu yidhi hadal yaa badan uu ku dhahay. wuxuu ku dhahayaa dhakhtarka hogaaminaya dhakhaatiirta. wuxuu dhahay lasta alladii tuqariru hada alamr. ninkii sheeqiyaa dhahay oo tarjumaanka ahaa, adiga ma tihid ruuxa arrinkan go'aaminayo. macnaha arrinkan waxaa go'aaminayo waa ilaahay, adigu way kaa weyn tahay, adna ma go'aaminaysa. ugu dambayntii waxaa dhacday ninkii wuu soo laabtay. wuxuu go'aan ku gaaray, sheekada markaan soo ururiyo, isaga iyo xaaskiisa inay cumro aadaan oo ilaahay subxaana wa tacaala xadiiskanuu maqlay oo dhahayo qofkii xaramka jooga oo cumro u jooga ama xaj u jooga
ومرتية إلهي ويهين martidaasi allaha martida ay u yihiin hadday wax weydiistaan ilaahay wuu siinayaa. halkaasay aadeen waa soo cumraysteen. markay soo cumraysteen waxaa cajiib ahayd markay soo laabteen bishii koowaad xaaskii xoogaa xanuunay dareemtay, dhakhtaray aaday, waxaa la yidhi uuraa leedahay. hal cunugaa u dhashay, waxaan u malaynaa maxamed inay u bixiyeen. haddana cunug kale labaad ayaa dhashay, waxay u bixiyeen cabdiraxmaan. markaas labadii wiil isagoo wata uu dhakhtarkii u tegey. dhakhtarkii wuxuu yidhi may xasuustaa waa dhowr sana kasoo wareegatay, marka 3-4 sano. markaasaa wuxuu yidhi haa meeshanaa ka shaqay jirtay. wuxuu yidhi labadan ilmood oo aan wato aan xabaarsanaa ilmahayga waay. wuxuu yidhi ma dhici karta u dhahay, xoraa ilmahayga waay, kan hal sano ka wenya. marka wuxuu yidhi hadday tan run tahay, qofkii ii yimaada oo ilmo raadinayo oo aan soo ogaado baaristeeda in ilmo dambe inay ilmo dhali doonin, adaan kuu soo diraya bay ii sheegi kartaa sirta si wax u dhacaan. dawaday isticmaashay, dhakhtarkii uu tagtay. marka wuu sheegay in cumrada uu tegey. taas waa number 1. marka daarta ducada in la aqbalo, meel lagu aqbalayo ducada, inkastoo ilaahay meel kasta ducada ku aqbalo, laakiin arrintan waa arrin gaar ah. waxaa kaloo inta kale waa soo koobayaa 2 cumrada kale intii laga gaaray inta u dhaxaysa wixii dambi ah gasho ilaahay wuu kaa tirtirayaa. 3 cumrada qofka oo cumraysanayo ajirkiis wuxuu leeyahay hawdhaay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhibka uu maraayo in nafaqada uu bixinayo intii la egta macna qarashka ka baxayo. cumrada sanadkan ka sii qaalisan tahay sanadka hore. qaali markay noqoto macnaheedu waxa waaye ajir iyo thawaabkaaga ayaa kor u kacayo. 4 rakaca haddaad dukato, hal rakaco haddaad dukato oo salaad ah xaramka oo maka aad ku dukato waxay u dhigantaa 100,000 oo rakacadood. xadiiska nabi xasan wuxuu ahaa salaatii fi masjidi afdal min 1000 salaa. salaada oo masaajidka rasuulku kan nabiga markaan tagno halkii salaad 1,000 ay u dhigantaa oo inta ah. markii xaramka maka aan tagno halkii salaad 100,000. marka waxaad soo xaabsanaysaa ajir fara badan aan la koobi karin. cumrada faa'iida shanaad rasuulku wuxuu yidhi cumrada waxa waaye tanaan kusoo koobayaa waqtiga dartiisa iyo balan aan lahaa. rasuulku wuxuu yidhi alayhi salaam cumrada waa alxaj alasqar, waa xaj oo yar waay. macnaheedu qofka oo xaajiga ah dembigiisoo dhan aa la dhaafaya wuxuu sameeyey sooma. cumradan waxa waaye qofka dembigiisa waa la dhaafayaa hadduu toobad keeno wixii dembi weyn waa laga dhaafayaa. sida xajka oo kale oo qofka la leeyahay wuxuu soo laabanaya sida markaasi waalidkiisa markay dhaleen oo kale ilmo oo nadiif ah lamid ma ahan, laakiin qofku u dhow yahay waay macnaheedu. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa cumrada inuu waafajiyo. qofkii raba inuu kasoo qayb galo lambarkeyga meesha soo gelinaya mise dacwo inuu soo waca waaye 3 nambar aan soo gelinayaa. seatiska uu yar yahay macnaha kuraasta oo aan ugu talagalnay inta qof baxayso waa kooban tahay. nus ka mid a dadkeeda hadda waa la hayaa, inta kale si usoo kala horumaraan ay u baxayaan hadduu ilaahay yiraahdo. reer Minnesota soo dhawaada. 2 sano ka hor aan baxnay, kii oo xanuunka jiray waa ka baaqanay xanuunka dartiisa iyo safaradii markaasi taqyiid in lagu sameeyey oo la joojiyey waad la socotaan. ilaahay subxaana wa tacaala hana waafajiyo cumradan barakadeeda khayrkeeda. dembigana ilaahay ha dhaafo, khayr oo dhan ilaahay hana waafajiyo, shar oo dhan ilaahay aan ka magan galnay. muraadkeena caama ilaah noo wada sahlo si degdeg ah maantadan saacadan daqiiqadan. allahumma amiin, allahumma amiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.